بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وأنس علي أحمد كمد أرددي دمسي EBI Expanded Program Immunization. إن شاء الله هالكان waxaan kasoo jeedin doonaa EBI muhiimada uu leeyahay xilliga soo intiraaqay faa'iidooyinka uu leeyahay waxyaabihii loo guuleystay EBI Expanded Program Immunization oo ah in talaalkii lagu fuliyo dhammaan dunida daafaheeda cunugu wuxuu fursad u heli karaa inuu qaato talaal dhameystiran qaasatan ilmaha halka sano ka sii yar haddii uu halka sano xitaa dhaafo xataa ilaa iyo 5 sano uu qaadan karo marka laga reebo talaalka misliska oo ilaa iyo 6 sano uu qaadan karo xilliga soo intiraaqay talaalka fidintiisa waxay ahayd 1974 ujeedooyinka ama hadafyada gaarka oo laga lahayna waxay ahayd dhammaan caruurta ku nool dunida daafaheeda inay noqdaan kuwa caafimaad qabo sidoo kale in la cirib tiro cudurrada qaar oo hadda lagu guuleystay in la cirib tiro ay ka mid tahay polio and smallpox sidoo kale cudurro qaarna la rabo in elimination lagu sameeyo ay ka mid yihiin hepatitis B iyo cudurro kale kuwaas oo ayagana la rabo in xaddigooda ama heerkooda la yareeyo sidoo kale cudurro qaar ayadana waxaa jiro oo reducing lagu sameeyo ka mid tahay measleska iyo tetanuska dhammaan hooyooyinka ku jira xilliga dhalmada waa la siin karaa laga bilaabo 5 ilaa 49 qaasatan hooyada uurka leh way ugu dhowdahay ama way ugu nugushahay inay qaadato tetanuska marka loo fiirsho hooyooyin kale maxaa yeelay hooyadaas waxay qarka u saaran tahay inay ku dhacdo tetana xilliga dhalmada qalab aan nadiifin kale ama qof aan si fiican ugu xeel dheeraan kale nadaafadii inuu hooyada dhaliyo kadibna hooyadii meeshaas ugu soo gudubto hadaysan talaal ay qabin cunugina xilligaas uu ku qaado cudurkan tetanus faa'iidada ujeedada kale oo loo saarana waxay ahayd in dhammaan caruurta ee caafimaadkooda noloshooda inta ka dhiman ay caafimaad ku dhameystaan inta ma ka soo gudubno waa maxay talaal waa howlgalka ugu muhiimsan ee caafimaadka bulshada loo sameeyo kaasoo sare u qaadaya caafimaadka bulshada shakhsi ahaan family ahaan iyo bulsho ahaanba faa'iidada uu leeyahay talaalka waxaa ka mid ah dhimashadii iyo cudurradii caruurta ku dhacaysay inay yaraato sidoo kale difaaca jirkeena inuu sare u qaado oo la shaqeeyo talaalka gaar ahaan unugyada qaabilsan difaaca jirka ay ka mid yihiin T cells iyo B cells inuu la shaqeeyo faa'iidada kale oo talaalka uu leeyahay waxaa waaye kaliya ma aha qofkaas oo qaatay inuu cudurkii ka badbaadiyo sidoo kale qofkiina wuu badbaadayaa dadkii ku spirit-ka cudurkana uu badbaadayaa dadkii ku hareersanaa oo community-gaas ku noolaana cudurkii way ka badbaadayaan waa saddexdaas faa'iido ayuu leeyahay marka inta ma ka soo tagnaa talaalka maxay ka aaminsan yihiin dadka bulshada maxay ka aaminsan yihiin talaalka bulshada 75% waxay ka aaminsan yihiin inuu leeyahay side effect hooyooyinka qaar waxay aaminsan yihiin talaalka tetanuska qaadashadiisa in laga qaado hooyada qaadato inay noqonayso madhaleys taas ay aaminsan yihiin halka hooyooyin kalena ay aaminsan yihiin caruurtooda markay geeyaan xarumaha caafimaad ee cilmahooda talaal siiyaan inay ilmihii naafa ka noqonayaan hooyooyinkii ama bulshada aan sare u qaadi karno muhiimada uu leeyahay talaalka inaan awareness badan u sameeyno hooyadii inaan barno low education-kana baartiwan ay ka tahay haddii hooyadii aqoon is lahayn ee si fahamsaneen talaalku wuxuu yahay ujeedada loo soo saaray hooyadii ma yeelayso inay cunugeeda talaal geyso marka inaan ku dadaalno hooyadii inaan barno talaalku wuxuu yahay haddii ay hooyada tahay mid aqoon lahayn karto inaan wax imagine ah boorar iyo waxaas ka tusno cunuga caafimaad qabo iyo cunuga oo cudurka haleelay cunuga caafimaadka qabo sidii qaabka loo siiyay iyo sidoo noqday kan ku dhacay iyo habka ugu dhacay inaan u sharaxno hooyadii taasna waxa waaye bulshadii kalsooni waxa waaye way qabaysaa inta badan waxaan oo hooyooyinka ka aaminsan talaalka waxyaabaha waxay la xiriirtaa waxyaabo hab dhaqameed caalami dhaqameed ah inta aan talaal geysanahay hooyo waxa leedahay cunuga madaxa dab uga dhijinaya ama geedgeedii waxa inta koray asiinaya waxaan wixii ma aqaani marka muhiimada uu leeyahay markii la baro qofka ayaa aaminsanahay markaas uu qaadan karaa talaalka 2011 Soomaaliya waxa qaadan jirtay percentage dhan 64 laakiin hadda maanta sidoo uu ka duwan yahay waxa qaadato 90% qaadato insha Allah waxa rajaynaynaa dhammaan dadka dhan inay sidaan si ka daran u sii qaataan fahmaan muhiimada uu leeyahay talaalka